maraykanka oo damaanad qaad raadinaya yaa iiga damiin noqonaya Iiraan inaysan wax canshuura ka qaadayn maraakiibta mari doonta Hormuz haddii heshiiska Cumaan iyo Iiraan ay kala saxeexdaan kaasoo waliba 60 maalmood kaliya heshiiska uu yahay haddaba arikan dadka falanqaynaya waxay ka yiraahdeen iyo sida xaaladdu tahay way noo soo socotaa laakiin marka hore warbixintan la yaab kale ee la qoray ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa soo xiganaya telefishinka weyn ee Mareykanka ee la yiraahdo ABC maamulka Trump wuxuu doonayaa inuu damaanad qaad xorriyadda marinka Hormuz maraakiibta maraysa uu u helo iyadoo aan wax canshuura laga bixinaynin marista maraakiibtaas haddaba telefishinka ABC News ee waddanka Mareykanka oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ayaa wuxuu leeyahay heshiiska la filayo Iiraan iyo Cumaan inay gaaraan wuxuu markaasi ku koobnaan doonaa muddo 60 maalmood ah inta lagu jiro heshiiskan gudihiisa waxa la qaban doonaa shaqo si loo gaaro heshiis muddo dheer oo ujeedadiisu tahay in si buuxda loo furo marin biyoodka Hormuz